Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaasheena qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo had iyo jeer aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa 10 Abriil 2026. Qodobada wararkeena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Hunter Biden oo ah wiilka madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dagaal feer ah oo qafis ah oo la galo wiilasha Donald Trump. Haddaba qodobkaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno tabinteena. Geesta kale waa maxay qorshaha ka kooban 10 qodob ee Iran ay soo bandhigtay isla markaana ay doonayso in ay noqdaan salka wadahadalada iyo heshiis kasta oo xabad joojin ama nabadeed oo dhexmara iyada iyo Mareykanka. Haddaba qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno tabinteena. Balse intaan u gudgalin marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like noo saarto. Haddii aadan horey noola joogin fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo bahdayada Hoggaan Media. Muuqaalka la wadaag asxaabtaada si uu u gaaro meel dheer. Magacaygu waa Hashim Adam. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Haddii aan ku bilowno Hunter Biden oo ah wiilka madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa si cad ugu baaqay in uu dagaal cafis ah oo lagu magacaabo cage fight uu la galo labada wiil ee ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump oo kala ah Donald Trump Jr. iyo Eric Trump. Haddaba shirkadda warbaahinta ee Channel 5 ama Channel 5 oo uu maamulo wariye madax banaan isla markaana saameyn weyn ku leh baraha bulshada Andrew Callaghan ayaa Khamiistii soo dhigay muuqaal ku baahsan barta Instagram-ka. Muuqaalkaas waxaa ka muuqday Hunter Biden oo si toos ah ugu yeeray wiilasha Trump. Haddaba Hunter Biden wuxuu sheegay in Andrew Callaghan uu u sheegay in uu qabanqaabin doono dagaalkaasi si uu ugu dhaco bandhigaasi socdaalka ah ee loo yaqaano Channel 5 ee Carnival. Hunter Biden ayaa yiri, waxaan u sheegay in aan diyaar u ahay 100% waana ka qaybgalayaa haddii uu dhab ahaantii suuragelin karo. Haddii uusan xitaa suurtagelin karin, haddana anigu waan imaanayaa. Haddii mid ka mid ah wiilasha Trump ay aqbalaan caqabada uu soo jeediyay, weli lama oga goorta iyo goobta uu dagaalka ka dhici doono. Sidoo kalena ma cadda in Hunter Biden uu kaligiisa la dagaalami doono labadooda ama haddii uu heli doono qof kale oo garab istaaga oo noqda lamaane dagaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in tartanka UFC 250 lagu qabto barxadda aqalka cad. Dhacdadan oo la qorsheeyay 14 Juun waxay u dabaaldegaysaa laba arrimood. Sanad guurada 250aad ee Mareykanka iyo maalinta dhalashada 80aad ee Trump. Waxaana la filayaa in habeenkaas uu ka dhaco dagaal weyn oo iska hor imaanayaan Eliel Tobray oo ah horyaalka miisaanka fudud ee UFC iyo Justin Gaethje oo ah horyaal ku meel gaar ah. Labadan feeryahan ayaa la filayaa in ay ku tartamaan dagaal lagu mideynayo horyaalka miisaanka fudud. Dhanka kale Hunter Biden waxa uu sidoo kale lagu casuumay in uu ka qayb galo qaybta ugu dambeysa ee socdaalka uu wado Andrew Callaghan. Socdaalkaas ayaa dhamaadka bishan ee Abriil ku mari doona magaalooyinka Phoenix iyo San Diego iyo Albuquerque. Muuqaalka uu baahiyay Instagram-ka uu ku baahiyay Hunter Biden wuxuu ku yiri, salaan ragga iyo dumarka. Halkan waa Hunter Biden. Andrew Callaghan ayaa hadda soo wacay wuxuuna iga codsaday in aan ku biiro socdaalka Channel 5 Carnival dhamaadka bishan. Kadib markii uu sheegay taariikhaha socdaalka, wuxuu intaasi ku daray in Callaghan uu isku dayayo inuu abaabulo dagaal qafis ah oo uu ku tilmaamay aniga oo la dagaalamaya Eric iyo Don Jr. Hunter Biden wuxuu kaloo sheegay in uu aaminsan yahay in Andrew Callaghan uu qorsheynayo waxyaabo kale oo lama filaan ah. Inkastoo uusan faahfaahin ka bixinin waxa ay noqon karaan.
haddii ay dhacdo in wiilasha Trump ay aqbalaan dagaalka, Hunter Biden wuxuu u badan yahay in uu ku jiro khasaare dhinaca da'da ah. Hunter Biden wuxuu jiraa 56 sano, taas oo ka dhigaysa ku dhawaad 10 sano oo ka weyn Donald Trump JR oo jira 48 sano iyo 14 sano oo uu ka weyn yahay Eric Trump kaas oo jira 42 sano. Sidoo kale ma jiro caddeyn ah oo muujinaya in midkoodna uu leeyahay tababar rasmi ah oo ku saabsan ciyaaraha dagaalka. Arintani ma aha markii ugu horeysay ee dad ka yimid meelo ka baxsan ciyaaraha dagaalka ay ka fikiraan in ay khilaafkooda ku xaliyaan qafiska. Sanadkii 2023 madaxa shirkadda X Elon Musk iyo madaxa Meta Mark Zuckerberg ayaa iyaguna ku dhawaa in ay galaan dagaal qafis ah. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka si la sugaya ee u dhaxeeya labada milyaneer weligiisa ma uusan dhicinin. Ugu dambeyn, warbaahinta The Independent ayaa sheegtay in ay codsatay faallo rasmi ah oo arintani ku saabsan kana dalbatay aqalka cad iyo sidoo kale Trump Organization, balse weli wax jawaab ah kama aysan helin. Hagaag haddii aan eegno qodobka kale ee xiga, qorshaha 10 qodob ee Iran oo noqonaya saldhigga wadaxaajoodka diblomaasiyadda. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa cadeeyay in wadaxaajoodyada ee soo socda ee u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka kuwaas oo ka soconaya Pakistan ay ku dhismi doonaan qorshe ka kooban 10 qodob oo Iran ay soo jeedisay. Isagoo ka hadlaya kulan ay ka soo qayb galeen safiiro, madaxa ergooyin diblomaasiyadeed ee shisheeye iyo wakiilo ka socda ururada caalamiga, kulankaas oo ka dhacay Tehran. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iran Majid Takht Ravanji ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu ku tilmaamay dambiyada ay Mareykanka iyo maamulka Sahyuuniyadda ee Israa'iil ay ka galeen shacabka Iran muddadii 40 maalmood ee uu socday dagaalka lagu soo rogay. Takht Ravanji wuxuu sheegay in weerarkii militariga ee ay soo qaadeen Mareykanka iyo maamulka Sahyuuniyadda uu ahaa dagaal sharci darro ah, isla markaana uu tusaale u yahay dambi dagaal oo ka dhan ah shacabka Iran. Wuxuuna yiri, Mareykanku xilli ay weli socdeen wadaxaajoodyadii Geneva ayaa mar labaad iyagoo dhexda kaga jira geedi socod diblomaasiyadeed weerar militari ay ku qaadeen Iran. Weerarkaas waxa ay ku dileen hogaamiyihii kacaanka Islaamiga, tiro ka mid ah taliyaal iyo saraakiil sarsare iyo sidoo kale dad rayid ah oo aan waxba galabsanin. Takht Ravanji wuxuu sheegay in geerida hogaamiyihii kacaanka Islaamiga Ali Khamenei ay ahayd musiibo aad u weyn oo ku dhacday Iran, balse wuxuu xusay in ciidamada qalabka sida Iran iyagoo taageero ka helaya shacabka Iran ay ku qasbeen Mareykanka iyo Israa'iil in ay dib u eegaan qorshaha istiraatiijiyadeed ee ku wajahan Iran kadib markii ay ku rideen guuldarro waaweyn. Isagoo tilmaamaya sida ay Iran u wajahday arinta xabad joojinta iyo soo bandhigista qorshaha 10 qodob ah, Takht Ravanji wuxuu sheegay waxaa lagu heshiiyey in qorshaha 10 qodob ee Iran uu noqdo saldhigga wadaxaajoodyada. Wuxuuna sidoo kale adkeeyay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran mar walba waa ay soo dhaweysay diblomaasiyadda iyo wadahadalka, balse ma aqbalayno wadahadal ku dhisan xog been ah oo ujeedadeedu ay tahay khiyaano iyo in looga gogol xaaro weerar militari oo kale oo Iran lagu qaado. Ma rabno xabad joojin siinaysa cadowga gardarada ah fursad uu dib isugu haween karo oo weerar kale ku qaadi karo. Saaxiibadeena si cad ayaan ugu sheegnay in arintani mar kale aysan dhici doonin haddii aan damaanad cad ah la helin. Takht Ravanji wuxuu kala sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayaan in ay xukunkooda ku faafiyaan gobolka galbeedka Aasiya, isla markaana ay wadaan waxa uu ku tilmaamay qorshaha Greater Israel. Wuxuu yiri, habdhaqanka Iran ee dalalka dariska ah wuxuu ku dhisan yahay daris wanaag. Howlgallada difaaca Iran looma arki karo weerar lagu qaadayo dalalkaasi, balse waxay bartilmaamsadeen saldhigyada iyo xarumaha Mareykanka ee ku yaala dalalkaasi oo loo adeegsaday weerarkii militari ee ka dhanka ah Iran. Dhanka kale, Pakistan ayaa ugu dambeyn horseeday heshiis xabad joojin oo soconaya 2 toddobaad, muddadaas oo wadaxaajoodyadu lagu qaban doono Islamabad. Iran waxay soo bandhigtay qorshe 10 qodob oo ay rabto in uu noqdo saldhigga wadahadallada, waxaana ka mid ah 1. in ciidamada Mareykanka laga saaro guud ahaan gobolka. 2. in cunaqabateynta laga qaado Iran. 3.
in la helo xakameyn ku saabsan maranbiyoodka Hormuz Strait. Dhanka kale, golaha sare ee amniga qaranka Iran, Supreme National Security Council of Iran, ayaa 8 Abriil sheegay in gardaradii dhacday ay ugu dambeyn noqotay guul taariikhi ah oo Iran gaadhay, taa oo ku qasabtay Mareykanka inuu aqbalo in lala galo wada xaajoodyo ay ku jiraan qodobyo ay ka mid yihiin damaanad qaad ku saabsan in aan mar kale la isweerarin iyo joojinta colaadda. Iran waxay sidoo kale cadeysay in wada xaajoodyadana aysan micnaheedu ahayn in uu dagaalku dhamaaday, balse ay tahay in goobtii dagaalka loo raray dhinaca diblomaasiyadda, iyadoo weli ay jirto kalsooni darro weyn oo Iran ay ka qabto Mareykanka. Haddii aad halkan nala soo gaartay, dhab ahaantii waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkani. Fadlan muuqaalka haddii aad naga hilmaantay like noo saar oo la wadaag asxaabtaada ra'yigaaga ama fikirkaagana qaybta hoose ee faalooyinka noogu reeb. Tan iyo inta aan tabinteena xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.